السلام عليكم لما انت صحابتي وحنا اصحابتي وصو بيرتبط قولي قبل ما يدين رجال ان شاء الله قبل حبسيده لو افدوبنا نيروبي وكان ابي ذا هلايو ان شاء الله باذن الله تعالى سر دغيسن شاكadu say u dhacday in sha Allah باذن الله كريم صحابتي ila joogtana jannada ma balan in sha Allah laantina war waay ani waxa la ilaahay maxamed luqmaan yaa la ilaahay gabadhana waxa la dhahaa xabsa maxamed luqmaan marka gabadha waxa weeyaan waa iskuulay ahayd meelan shaqo ugu furay oo dukaanay ahayd marka dukaankeeda joogtay gabar saaxiibteeda oo imaaday goor galab tahay ayaa waxay tiri dukaanka la meelahan ku soo arkay marka dukaankaas aan ku soo tusaa qara mar hor way shirku ku ahayeen qara sida ugu shaqaysanayeen marka dambe gabadhay hageeda lacag 300 kun oo yaa martay markii 300 kun martay kadib abaaray kala maqnaayeen markii dambe waa soo raadisay waa u imaaday waxay tiri dukaana meesha ku arkay dukaankan kaali soo fiiray tiri goorgal meel fiican ku yaala marka kaali dukaanka soo fiirinay kaali ku soo tusay tiri meesha markay tageen goorgalabtay tay maqrab meesha ugu galay yaa marka waqti salaada galay gabartii waa markuu ay tiri salaada markii kaali waa dukunayna ka markay tiri ana marka hadda daahirmii waxay tiri moogi marka aniga hadda markay gabadh fiicane hadii dukoy tiri gabartii bay iigo salaad ku jirto salaad dhaxdeed ayaa naman oo laba oo doomay iyo labadood isla jiraan in saddex ku tahay marka gabartii labadii oo doomay gadaal inta u maadeen ay ku dhajiyeen sidii waxay ku dhaxrideen mutuunga ay ku dhaxrideen marka gabartii waan waday meel qol oo meeshan oo mugdi ah oo idin markaas arkaynina lagu dhaxriday iyagoo gacmaheed iyo afkan waxay ugu duubeen afkan waa ka duubeen gacmaha waa ka xireen lugaha waa ka xireen gabartii meesha mutuunga markay dhigeen guriga dhaxdiisa ay geliyeen guriga marka meel mugdi oo guri mugdi ah marka meesha adiga markii dambe askar dalabnay anaga askarkii markaan dalabnay maalin labaadii ayaa fadhiyay waayeen nimankii gabadhii waxay ugu dhax carareen qolkii ay ugu dhax carareen way ka tageen gabadhii kaligeedas meesha waxay ku jirtay 5 bari ku jirtay 5 bari markay ku jirtay ayaa markii dambe ay gabadhii qaylisay sidii markaa oo dad shacab oo meelaha maray askartii u yeereen askartii u imaadeen marka gurigii qoray quful kala ay jibiyeen sidii ay markaa maana gabartii meesha ku soo badbaaday ilaahay ba soo badbaadiyay waan horta ku mahadinayaa muslimiinta waan ku mahadinayaa horta ilaahay ba mahad iskale mahad gadaasheeda waa iskale islaamka dhammaan guud ahaan iskale kan kale dawladda yaan u mahadinaynaa intii markaa ay ciidanka noo soo dirtay oo ay laawiyeen gabartiin aan saan ku hadlay marka ilaahay baa iska mahadle marka dawladda waxaan kale ka codsanaynaa dawladda ka codsanay ani gaar ahaan waxaan ka codsanayaa shirkadaha oo la yiraahdo Airtel dawladda inay qadka ka saarto mid kale inay ka saarto mootooyinkan oo gabdhaha lagu qaadayo oo tuugadu wadato oo waxay tahay la garanaynin oo dawladda dhulka oo u soo fasaaday oo dadka lagu dhacay inay qadka ka saarto marka taasaan dawladana ka codsanaynaa kaalmadii ay noo geysatiin waa ugu mahadinaynaa marka mid kale halkaas gabartu waa aad u fiican yahay alxamdulillah dib ma qabto meeshii ay xireen oo kaga tageen nafis ay maartaa gabartii ay ugu tagaan ay waayeen bareesha dawladda saartay yaa maartaa darteeda macnaha yaa nimanku saasay ku badbaadi gabadha ilaahay badbaadiyay saasay ku badbaadi kabaran jirkeeda maxaa ka muuqdaa balmashiga caafimaadkeeda jirkeedu waa wajiga ay ka feereen gacmaan waa ka dadalaceen sakiin ay ugu dirdireen dhiigii oo ka soo baxaya wajiga u mariyeen
gacmahana waa u duubeen oo gacmahana waa gacmaha harga ay ku xireen ayaa dhaawac badan u geystay maanta waxaan soo booqday Yuusuf Xasan maanta waxaan soo booqday Yuusuf Xasan isagoo mahadsan markaas ay dibadda ka imaaday isagoo macnaha fadhiisan si toos ah ayaa meesha nooga imaaday waa mahadsan yahay ogoo yaro shalmaadena waana siiyey oo gabirta aan meesha uga bixinayna isaguna waa u mahadcelinaynaa gabadha yaa shirqoy xataa miya gabadha waa shirqoore gabar saaxiibteeda oo si saayuub u hayaan ay qudaar yar isku darsadeen qudaartan ay ciidan ku shaqaynaysay ciidana si beesa ugu dhiibaysay oo macnaha noo shaqeeya u lahayd beesa badan lagu lahaaday beesa badan markii loo haday gabartii markii beesadii aawi tiri ya marka beesadii inay dhamaysatay inay kalma ogiye marka inay dhamaysatay inay ku dhamaysatay ma ogiga marka beesadii ya hadda ugu xirantay ya marka waa kaasaa gabdhaha Soomaaliyeed ayaga shirqoodaan ayaga isdhibaateeyaan waxaan ogahay gabadhii lagu dil Bambaasan oo iskoolka dugsiga sare soo dhameeyay gabar saaxiibadeed inay shirqooshay maxaa yeelay sheekadaasna waxaan ogahay walaashay iyo gabadhaas la dilay walaasheeda is agdegan anoo soo dhigin media laakiin gabadhaas waa ogaadaan filinkeeda dhan inaan waraysiga soo dhigaan rabay laakiin soo dhigo ma rabin calaa qalbiga qodadkaas inaan ilaaliyo gabadhaas waa dhimataba ilaa uu xaliisa miskiinta qalbiga dadkooda ilaalinaya insha Allah billahi kariim marka Soomaaliyeed kow horta dhibaatada annaka kow ka ah yaan dadkaas la nabi dadkan waxba kaama oga waxa taamo oga laakiin dhibaatada inay Soomaali lug ku leedahay taas ogaada ya waxa la yifaaso geedaa wuxuu yifaaso uma goysin hadaadan qayb adiga iga badi kugu jirin marka insha Allah guriga gobanimo gabadhi waa leedahay alxamdulillah waalidkeena ayaa qalbiga loo jeeday dhibaatadii gabadhaas gaartay ilaahay qalbiga u dajiyo insha Allah billahi kariim kale jaba gabadhaas miskiinta stress haysta ilaahay stresska dhibka ka bixiyo insha Allah guriga gobanimo laakiin gabadha Soomaaliyeed diga warsa qofka saaxiibka liganaysa iska fiiriyo saaxiibna tan kula dhanta xataa inta kale iska badaayo guriga gobanimo